بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمها بدن لو ومركله iyo barnaamijkeeni dhambaal waynu aalaaba in la baraarujiyo dii Allah uu diro ogolaado daqiiqadaha soo socda waxaynu ka warrami doonaa 6 amal oo ay wanaagsan tahay qofka muslimka ah inuu sameeyo ama uu qabto bisha Shacbaan oo ah bishan aynu ku guda jirno ee 12 Maars acmaasha ugu horeysa uguna qiimaha badan leh waxay tahay salaamatul qalb in qofku uu ka shaqeeyo in badan waqti badan oo ku bixiyo badqabka qalbigiisa waxaanu aragnaa badi dadku ku dadaalaya badqabka caafimaadka jirkooda waa wax aad u fiican mas'uuliyad saaran way tahay qof walbaaba inuu ka shaqeeyo oo ilaaliyo caafimaadka jirkiisa laakiin waxa aan ka yarayn hadaanu kaba qiimo badnayn caafimaadka qalbiga maxaa yeelay wanaaga qalbigu waa wanaaga jirka oo dhan xumaanta iyo xanuunka qalbiguna waa xumaanta iyo xanuunka jirka oo dhan sida darteed ba xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam sida ka sugnaatay xadiidka tafaqun alayhiga waxa uu yiri ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إلهنا سبحانه وتعالى وحوليه إن في ذلك مرق قرآن كورمي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد آية صد يتضبه سورة قاف إن قلبك لا إله إلا الله دولا قيمها أي هذا هي مرق فرصة سيدنا وكل كوسو سعتنا دوا مهم قفك إنه قلبك سي نظيفيه أو هجاج haddii maanta tusaale ahaan waxa ugu qiimaha badan leh ugu fiican ee dadku ay cabaan waa malab haddii weel aan nadiifayn intaad ku shubto lagu raacad oo diidaysa waxa leedahay weelka uu ku jiro ayaa uskaga hadda malab uu fiican la soco caanihi baa lamida biyihii baa lamida wixii wanaagsanaa acmaasha wanaagsanaa haddii aanay helin qalbi nadiif ah sidaas ay kharaab noqonaysaa oo aanay manfac iyo wanaag toona aanay u lahayn aynu ku dadaalno waa amalka koobaad amalka labaad bishan Shacbaan inaynu soono soonku qiimo aad iyo aad u badan ayuu ku leeyahay si guud islaamka dhexdiisa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu tilmaamay xadiis qudsigii waa kiiri kullu amal ibn aadam lah illa as-sawm aw as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi in aadam waxa uu leeyahay amal kasta oo uu sameeyo abaalkiisa marka laga reebo soomka maxaa yeelay soomka aniga iska leh Allah subhanahu wa ta'ala banaftiisi u idaafay wa ana ajzi bihi aniga ka abaal marinaya waa sida sabirka oo kale xisaabta soomku ma garan karno ma qiyaasi karno inta laagta ilaahay markuu sabirka ka warramay muxuu yiri inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab soomkuna waa sidaas oo kale ma oran karno hadaad maalintii soonto 10 casharaad helaysa 10 ayaan xasano ayaad helaysa soomku inta uu ku weyn yahay wuuna ka balaaran yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabtiisa karanay xadiis aad u badan baa nabi maxamed ka sugnaatay inuu bishan Shacbaan uu aad u soomi jiray soomka ku dadaali jiray Aisha يا أم سلمة يا صحابتي كلا رسول صلى الله عليه وسلم وحيسك دوام مرين بشة وجبضا صور عدا بشة رمضان إني أهيد بشة شعبان وحيسو وريان إني محمد الله بلاد أو صوم حريريا إني أهيد وكليا شعبان يا بشة رمضان إني صحابته تلمامين بال ورسولك كصوم بدنامر كلا جيام يد بشة رمضان إنها نتشرين أنكاهن بشة شعبان فضايل آدي أدو بدن بقصار ورتي markii la weydiinay Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa kiri waa bilay dadku moogan yihiino amalkan la rafciyo aniguna waxaan jecelahay amalkayga in la rafciyo kor loo qaado anigoo saman Allahu akbar maxaa ka qiimo badan qodobka amalka saddexaad waa qiraa'atul qur'aan Allahu akbar waa hayaatul qalb waa nolosha qalbiga qur'aan la'aani waa nolol la'aan bikulli macna hadaanad qur'aanka ehel iyo saaxiib la ahayn nolol sida u dhantay dhamaanteed ba ka dhiman hadaad qur'aanka saaxiib la tahayna waxaad haysataa nolol dhamaanteed almacna waxaan leenahay quraan la'aani waa nolol la'aan quraanka oo jira oo la saaxiibo la akhriyana waa nolol teeda ugu wanaagsan axaadiis ciida ka badan aayaad aad iyo aad u fara badan bay Ilaahay ka waran laakiin waxaan ku soo gabagabeynaa hadii adduunyada la yaqaan tijaaro iyo ganacsi aan khasaarin adduunyada lagu xisaabtamo maanta waa bal isku dhacay application la oranayo hal mar bad faa'iideysa 500 600 600 Allahu akbar Ilaahay naga qabto kuwa mudanacay tijaarada iyo ganacsiga aan khasaaraha lahayn miyaa taqaana waa tilaawatu kitaabillahi azza wa jal innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum yunfiqun yarjuna tijaratan lan تبور هذا بلو فرصة وحي رجينيان تجارية جناحسي أن خسارة لهين قضب كافرات وصلة الأرحام أو صلة الرحم وإصلاح بين الناس
allahu akbar inaad qaraabada xidhiidhiso labadii isku dhaca inaad heshiisiiso inaad ka shaqayso wanaag wallahi billahi ilaahay baa arkaye acmaal ka qiimo badan inaad qaraabadaada xidhiidhiso dadkan aad wanaagoo ka shaqayso fili maayo inay jirto waana waxyaabaha ugu waaweyn diintu ay nagu baaqso fattaqu allaha wa aslixuu daata baynikum wa atiicu allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin qodobka shanaad ee yadna ka mid a acmaasha aynu qabanano bisha shacbaan والتوبة إلى الله إن الله سبحانه وتعالى وتوبت كن إلهي بوحنا ليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ذاتك أهل الإيمان كهايو إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كن لمانتي وحن مدنتين إن الليبانتان وهتكولي ستان وحن الله سبحانه وتعالى كبر يا وأن ويدي سنيا إنه نجا أقبله أعماشا إنه قبلنا بشر هديت هاي الصون هديت هاي الصلاة هديت هاي الزكاة iyo hadday tahay sadaqo iyo acmaasha kaleba inta inooga dhimana ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo bisha rabadaan markay gaadhana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwii ka gacan qabsada ee ka faa'iidaysta bisha khayrka badan leh waxa aan ku soo gabagabaynayaa qodobka lixaad almuxaafadatu cala asalawaat almafruuda in la ilaaliyo salaadaha faralka ah salaada subax duhur casar maghrib cishaay mid kastaaba fadli gaaray leedahay laakiin waxay ka siman yihiin كتجستود إن خطر وينها صلاة أول لقى تجا والدين الآن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر مركز صلاة الله عليه والدين الآن حضاد بلا صلاة هاي دين كوشر تبجرت مركز صلاة كده ده بالقيمة بدن بس سعتها بشاسة وحوبها هتين لو ديار جروبه صلاة فرلا إلى هاي صلاة السنة على إلى هاي هدانو ما أنتو قف كده دالين صلاة فرالكا وأنا صنياش الراعين وحو خطر قشرة إن فرصة soo socota ay si fudud ku dhaafto ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka wanaagahina waafajiyo inaha siin ku soo gabagabeynana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk